waad mahadsantahay Cumaro wafdiga wuxuu ka koobnaa ragii saxiixay road mapka isla markaana mudooyinkii ugu dambeeyay la tashiyo u joogay magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya ugu dambeyntii maanta duhurkii soo gaaray magaalada xeebed Kismaayo xarunta gobolada Jubbooyinka ayagoona ka soo degay gegida diyaaradaha caalamiga Axmed Guri International Airport ee magaalada Kismaayo halkaa ay ku soo dhaweeyeen dad aad fara badan mas'uuliyiin waxgarad odayaal dhaqameed iyo waliba bulshada qaybaheeda kala duwan kadibna loo soo galbiyay gudaha magaalada Kismaayo xarunta gobolada Jubbooyinka ayagoona dadkii shacabka ay garoonka ku soo dhaweeyay ay gabi ahaanba ku soo galbiyeen magaalada isla markaana ay wehelinayeen ciidamada Kenya oo xagga amaanka aad u adkeynayay ayadoona ugu dambeyntii loo geeyay xarunta jaamacadda Kismaayo ee magaalada dhanka waqooyi kaga beegan halka oo shir xasaasi ay ku yeelanayeen wafdiga maanta soo gaaray magaalada iyo waliba maamulka kumeel gaarka ee magaalada ka jiray waan gartay marka aynta wafdigan iyagu maanta Kismaayo soo gaaray marka hore Nairobi ay ka soo dhaqaaqeen mise caasimada dalka Muqdisho ay ka yimaadeen sidaan wararka ku helayno wafdiga mudooyinkii ugu dambeeyay waxay ku sugnaayeen magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya ugu dambeyntiina maanta waxay soo gaareen magaalada xeebedka Kismaayo xarunta gobolada Jubbooyinka waan gartay marka wafdigan dadkii saxiixay road mapka ayaa ku jira tiri marka hadda mas'uuliyiinta soo gaaray yaa la xusi karaa oo iyagu wacad hogaaminaya مسؤولينta haatan wafdigan hogaaminaysa waxa kamid ah ama horkacayba wafdiga Sheekh Maxamuud Yuusuf aw libaax oo ah oo qaybsamaha ahlus sunna wal jamaa koonfurta dalka Soomaaliya ahna mid kamid ah saxiixayaashii road mapka waan gartay markaan soo dhaweyntooda kadib wax kulama oo ay magaaladu ay kula qaateen maamulka xilligan maamulka gacanta ku haya ilaa haatan aan kula hadlayo xiriir kala duwan oo aan la sameeyay Maxamuud Yuusuf aw libaax waxa uu ii sheegay ilaa haatan inay ku jiraan shir albaabada ay wax xiran aan saxaafada la ogoleen isla markaana ay la qaadanayaan maamulka kumeel gaarka ee gobolada Jubbooyinka haatan ka arimiya ee uu hogaamiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe mar haddii aad la xiriirtay mas'uulkaasi wafdiga hogaaminayay ma ku sheegay kulankooda waxyaabaha suuragalka inay kala hadlaan ilaa haatan wax la carabaabi karo ama ajandaha shirkooda maanta ay ku yeesheen xarunta jaamacadda magaalada Kismaayo Sheekh Maxamuud Yuusuf aw libaax muusan ee sheegeen asaatee warar dambe ayaan ka heli doonaa waan gartay aynta laakiin waayihii dambe maamul sameynta Jubbooyinka oo kale hadalhayn kala duwan ayaa ka soo bixisay sidaan ogeena igaad ayaa mar gaartay Kismaayo wafdi qaramada midoobay gaareen dawladda wafdi ka socda way gaareen wafdigan hadda soo gaaray iyaguna horeyna u yimaadeen magaalada laakiin ma la leeyahay arinta maamul sameyntu way ku jirtaa arimaha laga hadli karo runtii wafdigan haatan jooga wuxuu ahaa wafdi ka dhiman wafdi kale oo horey u joogay magaalada Kismaayo xarun goboleedka Jubbada Hoose kan uu ahaa mid dhameystirkiisa sida la og yahayna wufuudan ama wafdigan maanta imaaday wuxuu ahaa wafdigii loo xirsaaray maamul sameynta gobolada Jubbooyinka ayna u xirsaartay urur goboleedka igad inay gobolada Jubbooyinka iyo gobolka Gado ay u sameeyso maamul goboleedyo ama dawlad goboleed waan gartay dhinaca kale marka hadii aan su'aal ka weydiiyaduna shalay waxa la leeyahay Kismaayo waxa kulan ku wada qaatay mid kamid ah beelaha degan magaalada bal ka waran kulankaasi waxyaabaha ku saabsanaa iyo wixii ka soo baxay intaad ka warhayso shalay gelinkii hore ama doorkii waxa shir weyne ku isku yimid beelweynta daarood degta gobolada Jubbooyinka ayagoona ay ka wada hadlayeen ayahooda iyo wada noolaashahooda gobolada Jubbooyinka iyo waliba sida ay maamulka u qaybsan lahaayeen iyadoona mudooyinkii ugu dambeeyay shucaayo ay soo kala dhaxgalay beelweynta daarood ee degta gobolada Jubbooyinka ay Gado asaatee shirkii shalay ka dhacay magaalada Kismaayo wuxuu ku soo gabagabay is-afgarad iyo isfahan iyadoona ay bayaan ka soo baxay shirkaasi lagu xaqiijiyay in maamulka Jubbooyinka si wada jira ay u sameeysan doonaan beelweynta daarood waliba beelaha kale ee ku heliya ay dega gobolada Jubbooyinka waan gartay dhanka kale xalay qarax bambaan ayaa ka dhacay leeyahay magaalada Kismaayo iyadoo maxaa faahfaahin ka soo baxay qaraxaas runtii xalay qarax waxa la beegsaday gudoomiyaha degmada magaalada Kismaayo ee maamulka kumeel gaarka Cabdullaahi Khaldaan gurigiisa uu ka degan yahay magaalada Kismaayo qaasatan xaafada Goolwade wararka aan helayno ama warar ila wareediyo lagu kalsoonaan karo waxayna sheegeen inuu khasaaraha ka dhashay
laba dhimasho ah oo kamid ah ilaaladiisa iyo laba kale oo dhaawac ah waan gartay marka dabcan howlgalla ayaa jiray waayihii dambe bal ka waran xaaladda ammaanka magaalada inkastoo xiliyadan dambe la leeyahay Kismaayo ammaankeedu uu soo wanaagsanaaday sidoo hore markii loo eego warunta Cumarow mudooyinkii ugu dambeeyay xaaladda ammaanka gobolada Jubbooyinka ama markaan ka hadlayno magaalada Kismaayo uu soo wanaagsanaaday marka loo eego marka intii gacanta ay ugu qabteen ciidamada dawladda iyo AMISOM magaalada Kismaayo waayadii hore magaalada Kismaayo xilliyada habeenkii waxa ka dhici jiray weeraro foolka foola oo ay soo qaadayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ayaga isaga baxay magaalada Kismaayo hata ku sugan daafaha magaalada Kismaayo meel ka agdhow ayagoona ku soo qaaday weeraro aad u xoogan xarumaha ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay ka degan magaalada Kismaayo hata waayihii dambe waxa ay weeraradaasi ku soo idlaadeen howlgal xoogan oo ay sameeyeen ciidamada AMISOM iyo waliba ciidamada dawladda oo ay ku soo qabqabteen hub aad u fara badan iyo waliba miinooyin aad u fara badan oo dhulka ku jiray oo ay bixiyeen sidoo kale mudooyinkii ugu dambeeyay marka aan ka hadlo mudooyinkii ugu dambeeyay magaalada Kismaayo xaaladeeda ammaan oo soo wanaagsanaaday ayadoona mudooyinkii ugu dambeeyay ay dhacayeen kaliya weeraro gaadma ah ama weeraro bambaanooyin oo lagu tooreeyo guryaha mas'uuliyiinta gobolka ama mas'uuliyiinta degmada ka Arimiya waan gartay marka caynta ugu dambeyn adigu aad u mahadsan Kismaayo wad ku sugantahay saxafiyiintu aad kamid tahay arintii maamul sameynta dad badan way isweydiinayaan halkay ku dambeysay bal maxaa xilligan ka qabsoomay maxaa la leeyahay way ka soo bixin halkay maraysaa runtii arintaasi waa arin xasaasiyadeeda leh marka loo eego magaalada Kismaayo ama dalka Soomaaliya runtiina maamul sameynta gobolada Jubbooyinka markii si loo eego ma ahan mid fudud maxaa yeelay magaalada Kismaayo ama gobolada Jubbooyinka waxa dego beelo aad u fara badan inkastoo ay mararka qaar aysan ku heshiinin maamul sameyntaasi haatan marka loo eego dadaalada ay wadaan mas'uuliyiinta siyaasiyiinta iyo waxgaradka oo ka soo jeeda goboladani waxay u muuqataa in meel fiican ay ku sii wajahan yihiin maamul sameynta iyadoona mudooyinkii ugu dambeeyay afgarad uu jiray lana filay waqtiyadan ugu soo furtaaran in maamul rasmi ah oo magaalada Kismaayo xarunta gobolada Jubbooyinka ka Arimiya in lagu dhawaaqo taa oo ay u dhan yihiin dhammaan qabaa'ilada dega gobolada Jubbooyinka